waxaan xasuustaa maalin sanadkii hore aan u maleynay bishii November bishii diyaarad baan ka raacnay Djibouti waxaan u soconaa Addis Ababa Ethiopia Airlines maalmaha diyaaradda raaci doono muddo 5 bilood laga joogana diyaarad baa ku dhacday Ethiopia dhexdeeda oo 150 qof ay ku qudbeeshay waad maqashay ma maleyn ya 100 dar dhabayna la fadhiisatay dad baa naga raacay dadna hadana safarkii baa sii wadanay ilaa Addis markay u dhawaatay waxay gashay roob iyo buuro waana meelihii diyaaraddu ay ku dhacday ugu way girirtay markaa kursigan aan u fadhiyaa kitaab quraan aan iska akhrisanaya halkaana culimo kala fadhida halkana nin daadiisa ku qiyaasay 60 jir oo aan muslim ahayn oo gaal ah oo xabashi ay fadhiya diyaaradii way girirtay markaa quraan kan iska akhrisanaya lugtaydii buu qabsaday naxdin daraadeed markaas aan ku la ilaaha illa allah markaas uu yiri igu cali way girirtay hadana diyaaradii oo naxay aniga hadana ay qabsaday markaa baan la ilaaha illa allah markaas la ilaaha illa allah subhanallah dhageysta musa ajiib wallahi wa masa ajiiba markaasaan ayaan ku iri xal cabsoon ma ku iri odayada ma cabsoon odayada marka aniga ila socday niman culimo Djibouti baa hayano ijtimaac ka dhacay Addis Ababa ayaan u soconaa way iska hurdaniyo marka kursiga dusheeda iska khoorinayaan markaasaan ku iri kuwa ma cabsoonayaan adoo maxal cabsoon wuxuu iri kuwaasi way shaqaysteen anu ma shaqaysan buu iri kuwaasi waa muslimiin way shaqaysteen buu iri ma cabsoonayaan anu laakiin ma shaqaysan buu iri adduunkan aan khamri ku cabaa fisq iyo fujuur iyo balaayo iyo macsiyaan ku jira waxa marka wuxuu iri anu islaam baan u baahanahay buu islaam inaan islaaman doonayaa buu iri hadalkii hadana Saudi girirta diyaaradii markaas hadana lugtii qabsaday war isiida la ilaaha illa allah markaas iga dabeeyo la ilaaha illa allah diyaaradda markay nala fadhiisatay baan fursad baan helay waan ka faa'iideystay waxaan ka yiri waa inaad islaamta wuxuu iri islaamnimadu bariyahan oo dhan maskaxdayda ku dhex guuraysaa buu iri waanan arkay buu dadka muslimiintu dad wax weyn aaminsan inay yihiin waan arkay buu iri rag badan oo ganacsato muslimiin ana saaxiib aan laahay buu iri marka iisoo duceeyay buu culimadan ay ugu sheegay iisoo duceeyaan anna ballan waan islaamaya buu iri hadalku halka noo maray marka ayaa la soo dhaadhaca waxaan xasuustay marka aayadaas wa idha rakibu fil fulki da'u allaha mukhlisina lahu ad-din